السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان هابون داوديال halkani waa warmaxan TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka Ra'iisul Wasaare Roble oo bilaabay qorshe xasaasi ah oo ka dhan ah kursiga uu rabo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariya qorqor oo xalay kulan isugu keenay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame iyo Saadaq Umar Xasan Saadaq John iyo kulan ajiis hadaba waa maxay ujeedka Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo ka fakaday shirqool wax u dhimi kara musharaxnimadiisa madaxweyne hadaba maxaa xal u ah boobka ku socda doorashada dalka daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan u diyaar garooba aynu ku bilawnaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa wada qorshe dib loogu dhigaya doorashada kursiga uu doonayo in uu tartamo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo hore u soo ahaa agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaare Roble ayaa u yeeray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geele Yuusuf waxa uu ku amray in dib loo dhigo doorashada kursiga Hob 86 oo la filayo inay beledweyne ka dhacdo toddobaadkan soo socda Ra'iisul Wasaare Roble ayaa u yeeray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geele Yuusuf waxa uu ku amray in dib loo dhigo doorashada kursiga Hob 86 oo la filayo inay beledweyne ka dhacdo toddobaadkan doorashadiisa Roble ayaa gudoomiyaha u sheegay in tartanka kursigaani la qaban doono marka uu dalku dib ugu soo laabto xildhibaankii ku fadhiyay ee Faarax Sheekh Abdulqaadir oo mar kale rabo in uu tartamo kursigaani kaasi oo hadda dalka uga maqan arrimo caafimaad inta badan xubnaha guddiga doorashada ayaa ka hor yimid qorshaha uu wada Roble sida la soo marsiiyay gudoomiyaha guddiga doorashada heer federaal waxayna ku adkeysteen in doorashada kursigaani lagu qaban doono waqtigii lagu tala galay Roble oo ay horay isku qabteen Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa xoogiisa isugu geynaya sidii kursigaani loo dhaafin lahaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo hadda ah la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo ama ugu yaraan loo gelin lahaa tartan furan waxa muuqata in qorshaha Roble ay si weyn uga hor yimideen xubnaha guddiga mana la garanayo talaabada xigta ee uu qaadi doono maadaama tan ay ka fashilantay kooxda madaxweyne Farmaajo oo ciidamo badan geysatay magaalada beledweyne ayaa qorsheynaysa inay soo saarato xildhibaano uu ka mid yahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo la rumaysan yahay inuu tartami doono gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya dhanka kale madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa xalay saq dhexe kulan fool ah isugu keenay siyaasiga caanka ah Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame Saadaq Umar Xasan Saadaq John iyo Cabdullaahi Aadan Kulanajiid oo saddexdooduba loo doortay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka kulanka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa iscafin sida ay shaacisay madaxtooyada Galmudug oo qoraal kooban ka soo saartay sidoo kale qorqor ayaa kula dardaarmay saddexdaani xubnood inay ka shaqeeyaan horumarka dalka gaar ahaan inay si dhab ah baarlamaanka ugu metelaan Galmudug Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo ah siyaasi mucaarad ah ayaa waxa dacaawad dhinac waliba kala dhaxaysa labada nin oo ah koox si weyn ula shaqeyso madaxweynaha muddaxileedkiisu uu dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo Saadaq John ayaa lagu xasuustaa weerarkii lagu qaaday hoyga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo lagu dilay qaar kamid ah ilaaladiisa isagana lagu dhaawacay kadibna la xiray isagoo amar dambe maxkamad la saaray dhankiisa Cabdullaahi Kulane ayaa kamid ah saraakiisha ugu sareysa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxa uu kamid yahay shakhsiyaadka aadka ugu dhow madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Farmaajo iyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir si kastaba saddexdaani xubnood oo lagu doortay Dhuusamareeb kuna cusub golaha shacabka ayaa ku biiri doona baarlamaanka 11aad ee dalka kaasi oo soo dooran doona madaxweynaha cusub dhanka kale siyaasiga caanka ah Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa shalay loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya kadib doorasho ka dhacday gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo sidoo kalena ah musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya ayaa culays xoogan kala kulmaysa filla Soomaaliya oo ay sanadihii dambe si weyn isku hayeen filla Soomaaliya ayaa si weyn isugu dayday inay dhaafiso kursiga uu ku guuleystay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame iyada oo shakhsiyaad magac leh u diyaarisay inay isku soo taagaan tartanka kuwaasi oo markii dambe ku haray rabitaanka beesha iska leh kursigaasi
cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa guul taariikhi ah ka soo hooyay doorashada inkastoo uusan gelin tartan adag sida uu shaaciyay guddiga doorashada ee galmudug naciimo xuseen cali oo la tartami lahayd cabdiraxmaan ayaa ka tanaasushay tartanka kadib waxaa lagu qaaday cod gacantaag ah isaga oo helay codad gaaraya 86 cod oo ah dhammaan ergada soo xaadirtay dad badan ayaa isweydiinaya in cabdiraxmaan kursiga ka soo heli doono dhuusamareeb haddii cabdiraxmaan uu soo waayi lahaa kursiga beeshaasi ee golaha shacabka waxay caqabad weyn ku noqon lahayd damiciisa filla Soomaaliya iyo halgankii waqtiga dheer ee siyaasadda taasi oo ay rabeen kooxaha farmaajo way adkaan lahayd inuu gudo balse cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu kursiga ku soo qaatay si sharaf leh oo waliba la dhihi karo wuxuu yahay musharax xildhibaan oo aan ka tagin mabadiisa kursiga ku soo qaatay madal ay ku xoogan yihiin cadawgiisa balse cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu kursiga ku soo qaatay si sharaf leh oo waliba la dhihi karo wuxuu yahay musharax xildhibaan isaga oo aan tagin mabadiisa kursiga ku soo qaatay madal ay ku xoogan yihiin cadawgiisa inkastoo waxa hadda dalka ka socda aan doorasho lagu qeexi karin haddana inaad ka soo dhex baxdo mashruucaani doorashada shabaha ama aad u dhacdo waxa ay labadaasi dadweynuhu u qaadan karaan si kastaba ha ahaatee doorashada golaha shacabka Soomaaliya ayaa dardar ku socota waxaana uu qorshu yahay in la soo gabagabeeyo 25 bisha Febraayo ee sanadka 2022 وهجاجة داود يجال ولي واحد داون إنسان ورمحن TV جود أهم وركي أتك داون إنسان ورمحن TV وأنا أنت وركان ورلعينا أنت كل مدونا سيداس إيا أمان الله.